graduating class of 2007. And we really give our appreciation to our leaders, especially Brother Abdul Qadir Yassin, Brother Abdul Qadir Mahdi, Brother Ashur, and the rest who have organized this very wonderful event today. It is not an easy thing to stand in front of such a great and wonderful audience and at the same time not feel nervous and sometimes even shake. You have seen the brother who has been Hafiz, as a matter of fact, and has known a lot and very fluent in English, wasn't able to actually deliver the message the way he actually prepared. I might be flip-flopping a little bit here and there, and hopefully you will, inshallah, bear with me as I walk you through this event today. First of all, I will be mixing a little bit there, inshallah, because some of our parents may not understand. runtii aad ayaa ugu mahadsantihiin walaalaha na hogaaminayay maamulka noo hayay sida Cabdulqaadir Yaasiin, Brother Cabdiraxmaan, Cabdulqaadir Hindi, waalidiintana sharafta leh iyo gabdhaha walaalaha iyaga oo aad iyo aad u qiimo badan oo maanta halkan isugu yimid ayaga oo nooga hambalyeynaya accomplishmentka runtii aad iyo aad qiimaha u leh walaalaha graduate gareeyay maanta sida kuwa high schoolka ka baxay kuwa jaamacadda ka baxay iyo kuwa maaragtay masterka diyaariyay sida walaalkeen Abdul Aways. I don't think he's here right now, but hopefully he will be showing up. marka runtii waa arrin aad iyo aad muhiim u ah dhiirana gelinayso inta aanan achieve garaynin goalkan oo laakiin jidka kusoo jirto iyo inta haminaysa laakiin aanan weli bilaabin maaragtay waxbarashada sababtoo ah iyadoo waxbarashadii ay qiimaheeda Allah subhanahu wa ta'ala uu quraanka ku sheegay qiimaha ay adduunyada ku leedahayna runtii loo wada jeedo khaasatan marka aad joogtid qurbaha sida maaragtay Mareykanka iyo meelaha kale ee Yurub yani waxbarasho maanta ninkii aan education lahayn xishmad ma laha oo socod fiican ma laha shaqooyinkiisa promotion ma laha asaga laftiisa tixgelin ma laha why because waxaad tahay nin aanan education lahayn haddii aad tahay nin fursadii alla u saamaxay helay inuu waxbarto qiimaha ay waxbarashada leedahay ninkii alla u jecel yahayna diinta ayuu fahansiyaa meaning diinta macnaha cilmiga ayuu bartaa marka diinta waa cilmi as a matter of fact it is the backbone and it is cornerstone to even your living because when you don't have the religious knowledge I said I will be flip-flopping here and there mixing the languages when you don't have the religious language knowledge you don't even understand what life really is. That is why a lot of people when they are confronted and faced by trials and tribulations of this life they can deal with it. Why? A lot of actually people even resort to committing suicide. Why is that happening? The reason is when you don't understand why you are created, when you don't understand your purpose of this world, the only answer will be taking your life. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala Qur'anku wuxuu noogu sheegaa qalbigaaga markii dhibaatooyin iyo mashaakil iyo wareer ku qabsado waxa qalbiga bin aadamku uu ku degaayo waxa way diinta Allah subhanahu wa ta'ala. Allah says that alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah yatma'innu alqulub kuwa Allah subhanahu wa ta'ala rumeeyay qulubtooda waxay ku xasilaysaa ee qabobanaan ku helaysaa yani dhikriga Allah subhanahu wa ta'ala and the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. How can you know that the way to peace and tranquility and happiness in life is through having the knowledge first and then living upon it? A lot of times the secular education will lead to understanding of life because it makes you think. That is why in schools we take a lot of literature classes, a lot of psychology classes, a lot of critical thinking classes. Why? To enhance and expand your mind. qalbiga bini aadamka haddaan usoo laabano
markuu qofka waxbarashada bilaabayo ama in the beginning stages maskax qalbiga macnaha it is in it expands and actually it is in what do we call in biology, contraction and expansion. So as you gain more knowledge qalbigaagana uu sii furmaya and you understand more. Marka cilmiga faa'iideysa waa sidaas. Marka walaalaha hadda high school ka soo baxay, I have a little piece of advice. As you pursue your education, especially in colleges, it is not an easy. You have to sacrifice a lot, you have to forgo a lot, and you have to be very patient. You have to be very patient. Waalidkana waxaan ka codsanaynaa maartay inay support siiyaan carruurta waxbarashada ku jirto maartay colleges iyo hadda bilaabayo. Sababtoo it is not an easy thing. You're overloaded with a lot of homework, a lot of assignments. If you don't get the social support you need, 9 out of 10 you might not accomplish your goals. Why? Because support ki u baahneed ma helin. Laakiin maanta sida ay muuqato, yani the turnout is very great. Our parents are kind of very happy with us, and they have actually attended the event, and we really appreciate all of you, especially the guests, the friends, our leaders, iyo wadaadada imaarta culimada nooga soo qayb gashay meesha. Cilmiga sababaha loo barto way kala duwan yihiin. Dadka qaar waxay u bartaan in maartay yani waa mutacallim la dhaho. Dadka qaar waxay u bartaan famousnimo. Dadka qaar waxay u bartaan inay lacag badan ku helaan. A lot of times qofku markuu jaamacad ka soo baxo يعني وسن شغلي اللي قفل لها مثل عكس على السميرين حنقول لي ما حتصبرتي أو حاجة ما حتكون كنت موت مركز the purpose in the beginning أو حبرني يصير معها إن مارتي عمل فين ما تكون نقطة معها number one thing ورتينا واحد فهمتي واحد فهم مثلا knowledge a lot of things ما فهمت إذا ده ما حبرش هذا الآن for example هاد برك إسكولات كلا هذا يعمل مريكم إسكولات كا سببها اللي هذا ما حبرش هذا كسكو وحكم إذا you're getting to know a lot of people. You're networking. You understand how the system in the West, especially the United States, works. هذا المسؤول كعادي المركب واحد كور هاي سيدكو ما لها مركب as you pursue first year مركب كبحث second year مركب سيكل third year وحسي فهم how this country works and how you can learn from a lot of the resources to achieve your final goal. مركب سؤالات كأي لو فهمها. You will also learn how you can raise helicopters, for example, promotions that helicopters, for example, and how you can even play other roles, maybe political or social or anything else. marka waxbarashada ama iskoolka la aadayo waxa lagu fahmi karaa qaabka aad maartay maanta aad uga qayb gali karinaad fursadaha maartay banaankaas yaala walaalaheen sida aan sheegay Abdulqaadir Abdurrahman, they are exactly doing that, helping us understand sida maartay wadankan uga faa'iideysan lahayn fursadaha maartay laga heli lahaa mid kale walaal I was talking to brother Abdulqaadir, he told me annaga Soomaalida yani waxyaabaha accomplishment kama jeclin in la tuso in la soo saaro event for instance waxaan ka xishoonaynaa inaad yani aad gashitid your guns. Why? Because yani wuxuu ku leeyahay the reason is marka aad saa u soo labisatid oo aad macnaha gunska aad wadatid ardayda hadda jidka soo hayso isku macnaha waxbarashada ku jiraan they will follow the footstep. Events kan qaar badan ayaa maartay isku dayay inay one of the days coming inay maartay yani noqdaan the graduating class markii yani waxyaabaha la accomplish garay in la soo saaro oo dadkii lagu tashjiiciyana waa waxyaabo maartay runtii aad iyo aad muhiim ah. One other thing I want to share is weli diintii lagama dhaxlaxsano sababtana waxaa waaye runtii haddaadan diin lahayn focuskaaga ama adduunyada ha ahaado ama nolosha kale ha ahaado yani aad ayuu xumaanaa. A lot of times culimada waxyaabaha looga cabsado waxaa ka mid ah they're just too serious. They're just too serious all the time. kulamo qoslayaan kulamo sheekaysanayaan they don't joke with you, they are too serious even though taas aysan ahayn yani wax diinta lagala imaaday oo loo baahan yahay qofka xataa